scholarshipku basically waa deeq waxbarasho ay bixiyaan jaamacado, hay-ado iyo dowlado, kuwaasoo kaa bixinaya qarashaadkaaga iyo waxbarashadaada iyo noloshaada muddada aad ku jirto waxbarashada. Marka muuqaalkan waxaan kula wadaagayaa scholarshipska, faa'iidooyinkooda, meelaha aad kala xiriiri kartid iyo shuruudaha lagaaga baahan yahay. Scholarshipka waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood: partial scholarships, full funded. Haddii aan ku horeyno faa'iidooyinkeeda, 1. inay kaa bixin doonaan tikidhka safarka aad kaga tegaysid Soomaaliya aad ku tegayso waddan kale ee aad ka heshay scholarship. 2. waxay ku siinayaan guri aad degi lahayd, hoygii aad ku nasan lahayd. 3. lacag billa ah ayay ku siinayaan mar walba si aad noloshaada u dabarto. 4. waxay ku siinayaan caymis caafimaad. Shuruudaha way ku kala duwan yihiin scholarship, laakiin waxaan kula wadaagayaa 5 shay ay ka sameeyeen yihiin badankoodu. Baasaboor waa inaad haysataa, certificate waa inaad haysataa, tii iskoolka ama tan jaamacadda, waraaqad transcript ah iskoolkaaga ama jaamacaddaada aad ka soo qaadatay oo ay ku xusan yihiin dhammaan darajooyinka aad keentay muddada iskoolka ama jaamacadda aad dhiganaysay. Recommendation letter waa waraaq aad ka soo qornaysid macallimiintaadii ama maamulka iskuulkaaga. Standardized exams, imtixaanka caalamiga ah sida ELTO, TOEFL ee luqadda Ingiriiska. Haddaba intii iska diiwaan gelin kartaa scholarshipka: 1. scholarship.com, 2. scholarship.com, 3. somacoach.com, 4. Som Dream Agency.